وأنا سعد سعادة يو halkan aan iskaga yaranastaa markaan soo gaadho dhirtan hoosteeda adduunyay waa la leey adduunyay waayo badan maanta hodman baa markay iskuulka ka timi waxay ila wadaagtay aktar aan daawan jiray show aan aad iyo aad u jeclaaba ku jirayo intii dambena showgaasi dhammaaday hadda 20 years ago uu dhammaaday showgaasi waan iska jeclaa actorka waan iska jeclaa one of my favorite actors buu iska ahaa kind of my type indhaha yaryar iyo sida James Van Der Beek baa la yidhaahdaa Dawson's Creek buu ku jiri jiray show la yidhaahdo very very popular ahaa based in North Carolina 2023ga dhammaadkiisiibaa waxaa lagu sheegay colorectal cancer baakan look how handsome wow so handsome mashallah I like the fit indhaha ka qosla like that anyway ifant buu iman lahaa shalayto baryaha iyo baryaha lama arag groupkii uu showgaa kula jiray very popular all American high school show buu ahaa so cute ayaa reunion lahaa marka dad badani malaa may ogeynba the long time buu showguna dhammaaday marka video buu soo diray uu dadka la wadaagayo picturekanaa laga qaaday video adduunyay waa la leey adduunyay waayo dhacdhac bay tidhi islaan ayeeyaday ahayd walla waan lagu waarin ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra adduunku waa sidaa maalina adaa leh maalina asaagaabaa leh waa lagama maarmaan inaynu mar walba xusuusnaano sidaa loo dhacdhaclayn maayo ilaahay subxaana watacaala khaatimada khayr ha inoogu khatimo mar walba hayna sulansiiyo adduunkan ma garanaysaa bini aadamku waa iska we're such a weak creatures moogtahay you know hadal yar baa lagugu odhanayaa wax yar baa lagugu odhanayaa markaasaad you know sidaad weligaa joogaysid weligaa noolaanaysid baad isa soo maqiiqaysaa ma garanaysaa kollayba anigu I feel like I think wax walbaan doonaya inaan dhahdo waan idhi si walbaan dadkayga doonaya inaanu la hadlo waanu la hadlay si macaan iyo heeso iyo kaftan waanu la hadlay waanu hiiliyey waan ku qayliyey waan canaantay there's enough videos out there oo ma garanaysaa wax walba leh ma garanaysaa hadda wixii ka dambeeya yes wax dee waano iyo waan isku leenahay iyo ma garanaysaa but intii horena cafi iyo musaamax aynu iscafino cafi iyo musaamax wixii hadda ka dambeeyana wax aad wax ka faa'iidaysataan mooyaane wax kale idin soo dayn maayo haddii ilaahay subxaanahu watacaala idinka ka dhigo mar walbaan waxaa israadaa wax laga faa'iidaysanaya laakiin canaanta dadku ma jecla marka camdhaan canaantii inaf canaan waan idin dhigay waan idin hayaa meel walba way ku jiraan although aan isleeyahay anigu qofkii cajladahayga dhegaystaa xabad cajladan qofkii dhegaystaa wada dhegaystaa sidaanu isku nacna way adag tahay laakiin cajlada lasoo googooyey unbaa dadka badankiisu intaa arkaan ma garanaysaa anad siisi cajladahaas inaad ma garanaysaa dee wax kala boodid amba way gu dhacday inkastaan dhowr jeer dadka raali geliyey cajlada lasoo googooyey oo aan wax ka idhin nad anigu dadka iskama difaaco usually because nin durbaa qaatay cilaaq dambey dadka waxaan isku laynaa inaan qof kale anoo qof kale u hiilinayo laga gardaranya ama la dhibaateeyey iyo waxyaabaha mooyaane ama dee nin aan isleeyahay dee dumarkiibu nafta u keenay dumarkan mooyaane cid kale miyaan lala hadlayn iyo waxyaabaha mooyaane iyo carruurtiiyo dee dadkaa kale taana wax walbaan ka odhanayay waan ka idhi
and hadda laga bilaabana waxa weeyaan different kind of legacy insha allah biidnillah ayaan idiin bilaabi doonaa haddii eebba idinka ka dhigo wallahi actorkan you know waan la koray de intaan maraykan joogayba waan daawanayay you know and you feel like inaad taqaanid qofkaas oo kale ma garanaysa maalin walba halkaa kaaga soo muuqan jiro you couldn't wait oo aan sugi kari jirin isagiyo gabadh baan isla jeclaa showga ay ku wada jireeno and you know sida aan falastiin uga tiiraanyooday iyo dadka reer falastiin baan isna uga tiiraanyooday waan u duceeyey isagana in ilaahay subxaana watacaala ka dulqaado in ilaahay subxaana watacaala qof kastoo xanuunsanaya uu ka dulqaado xanuun u tayasiiro khaatimada khayr ugu khatimo ilaahay idinkii ilaahayna subxaana watacaala ummaddiisa uu isu sakhiro gaal iyo muslimba ma kala maaranee uu isu keen sakhiro ilaahay idinkii ilma xaawiya aadan baynu nahay inuu isu keen sakhiro aan ilaahay inoo weydiiyey ilaahay mar walba ducadayda ugu badani waxa weeyaan ilaahay ow rabbigayow khaatimada khayr noogu khatin oo ilaahay ow rabbigayow ummadaada gaal iyo muslimba noo sakhir ilaahay waxaan ka baryaa inuu khaatimada khayr noogu wada khatimo walaalayaal lately intii hadeer arrintan falastiinba marba marka ka dambaysa waxa weeye nolosheenii oo dhan baa isbedeshay qof kastoo wax fahmaya qof kastoo wax garada waa very very important waa lagama maarmaan inaynu xusuusnaano in adduunkani maalmo yahay everything can change in split seconds adduunkan gabadh baa waxaa jirtay aan asxaab ahayno aan u yara cadhooday you know waxaan idhi I'm just gonna call her because it's not worth it cidna inaad caloosha wax ugu haysid it's not worth it in adduunkani uu micno daran yahay aanu micno lahayn waynu wada ognahay kulligeen laakiin waynu ilownaa bini aadan baynu nahay ilowshiyo dhowaa baa la yidhi mawmulba we forget waynu iska ilownaa ilaahay kuwii xusuusta ha inaga dhigo subxaanahu watacaala kuwii mar walba xusuustaa it's also important waa muhiim inaynu faraxno inaynu qosollo inaynu grateful ahaano because there's so much to be grateful for weliba markaad inaad nabadgelyo haysato ma garanaysaa aan baam sida roobka kuugu da-aynin aanad carruurtaadii marba afka ku qaadanaynin aanad sow daal marmar falastiiniyiintaas siday u daalaan ay yidhaahdaan alla ilaahay adduunkan maad naga kaxaysatay please be grateful always be grateful walaalayaal mahadnaqiinu dhiib ha ahaado mid very deep ah very deep almost inaad ilaahay sidaa u hagaraynaysaan oo kale ha ahaado it's never too late to have fresh start inaad fresh perspective iyo inaad dib u soo bilowdo wax walba yaa meel cusub inaad wax ka bilowdo hadeerto oo aad wixii hore meel intaad ku tiiriso yaa aad hadeer dib u bilowdo it's never too late inta aad dig leedahay it's never too late shalayta waxay ku soo baxay tiktok anigoo video yar gelinaya inaan la yidhaahdo nin rageed wiil yar ahaa wiil yar beautiful young man wanaag badan laga sheegayey wanaag badan baa laga sheegayey ninka low jannadii ku gee low jannadiidu wadagee intii naga horreysay oo dhan innagana waqtigeenna ha inooga daba naxariisto ilaahay idinku I think maybe toloma car accident buu ku dhintay ma aqaano wax badan laguma soo qorin tahay waa taa nolosha waa taa wax walba it's never too late inaynu dib u bilowno
inaynu iswada saamaxno inaynu isu wada ducayno waxaan oo dhan hadday qabiil tahay la isku uruursanayo hadday deegaan tahay la isku uruursanayo hadday tahay dumarnimo la isugu hiilinayo ama nimannimo la isugu hiilinayo hadday tahay ehelnimo waxaasoo dhan there's famous saying nin waxaa jiray very wealthy marka aad buu u shaqo badnaa intaa shaqaduu kusii socon jiray hadii jeero marka wuu xanuunsaday markuu xanuunsaday baa his best friend baa u yimi saaxiibkii markaasuu ku yidhi ii waran hebelow markaasuu yidhi one thing aan ogaaday yaa waxa aan finally ugu dambeyn fahmay buu yidhi marka aad xanuunsato ee aad og tahay waqtigaagii inuu gebageba yahay ugu dambeyn marka lagu soo jiifiyo aad og tahay saacaddii inay tibiq leedahay odhan maysid buu yidhi we haddaan xafiiska waqti kale kusii isbeengarayn lahaa I wish I spend more time at the office I wish inaan xafiiska waqti kale kusii isbeengarayn lahaayo aan shaqo badan sii qaban lahaayoon lacag badan oo kale sii ururin lahaayo wax kale aan meel sii dhigan lahaa you'll never say that yeah you won't say that wax walba waad ka dhaqaaqaysaa everybody knows that gaal iyo muslim Apple founder Steve Jobs baa isna wuxuu yidhi finally I'm a billionaire he was $7 billion rich markaa and which was a lot of money still dhowr iyo 10 sannadood ka hor and the maantana wuxuu ahaan lahaa probably a couple of $100 billion buu worth ahaan lahaa and wuxuu yidhi maxay iigu taallaa wixii aan lacag shaqaysta mar haddaanay naf cusub ii iibinaynin allahu akbar doesn't do anything for me waxaasoo lacagii buu yidhi Steve Jobs billionskaas qashinkaasoo kale la mid yihin waxba micnaa iguma fadhiyaan cunto fiican ka cuni maayo dhakhtar buu ku jiraa falee baa ku rakiban waxma liqi kareen beer cusub beerkuu dhintay isagu beer cusub ii iibin mayso waa loo waayay beer maaji kareeya meel qurux badan kama tegi karo saamaba dhaqaaqi karee yaa nin kulula wuu ahaa sida la sheegay aad u kulul shaqaaluhu aad iyo aad bay uga baqi jireen he was considered a difficult person qof qalafsan baa la odhan jiray weeye in the end none of it matters ugu dambeyn none of it matters marka kasii fiicnaan lahayda in inta aynaan halkaa gaadhinba aynu isku dayno inaynu isa saxno hadda isqabanno hadda isa saxno I will do my very best I promise anigu my very best idinkana sidaasoo kalean idinkula dardaarmaya I love you I thank you for your time nabade khayr iyo baraar aynu isku ilaahay khaatimada khayr inoogu qabta nabade